safiya waa haweeney wanaagsan oo saalixad ah. waxay leedahay 3 caruur ah. nolol fiicanna way ku noolaayeen iyada iyo qoyskeedu. waxaa jaar la ahaa wiil yar oo miskiin ah oo hooyadii iyo aabihiiba dhinteen, waxaana soo korsanayay adeerkii. waxaanu ahaa adeer xun, waxaanu siin jiray cuntooyinka lasoo rareebo, waanu ku shaqaysan jiray, gawaadhidana uu meedhi jiray. waxaanu jiray 8 sano. haddaba safiya ayaa ogaatay inanka yar ee miskiinka ah dhibkan haysta. iyada ayaa kafaalo qaadatay ilmihii yaraa rajaga agoonka ahaa, iyada oo aanu ogeyn adeerkii. wax walba u baahdana way siinaysay. waxay bartay qur'aanka iyo salaadaba. mar walbana waxay soo xasuusan jirtay xadiiskii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ee ahaa, qofkii si naxariis leh madaxa ugu salaxa agoon, tiin walba ee gacantaasi martay ilaahay wuxuu ugu qorayaa xasanaad. haddaba muddo 5 sano kadib ayaa safiya ninkeediibaa go'aansaday in ay iskaga guuraan xaafadahan. safiya iyadoo ka xun oo murugaysan ayay sii maxasalaamaysay wiilkii rajagii agoonka ahaa, waanay ku dul ooyday. kadibna ilaahay ayay u bariday inuu ilaahay ilaaliyo. kadib waxay siisay taleefon lambarkeedii oo waxay ku tiri, waqti allaaliya waqtigaad ii baahato ila soo hadal. aad ayuu u murugooday inankii yaraa. waxaa ka fogaaday qalbi naxariis leh, waxaa ka fogaaday naxariis hooyanimo, waxaa ka fogaaday qof aad u daryeeli jirtay. safiya habeen walba ilaahay ayay u bari jirtay inuu ilaahay caawiyo inanka yar ee agoonkii rajaga ahaa. haddaba muddo laga joogo 15 sano, safiya oolaadeedii way guursadeen, ninkeediina waa u geeriyooday. safiya waxaa la soo darisay xanuun. haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa u soo galay dhakhtar qalbi wanaagsan leh oo saalixa, si uu ogaado xaaladda haweeneydan la soo dhigay dhakhtarka. haddaba goortii uu arkay ayuu ooyey, ilin ayuu ceshan kari waayey. waxaanu lahaa, hooyo, tani waa hooyaday. safiya way yaaftay. waxay tiri, caruurtaadii dibadda ayay ku maqan yihiin, waayo qofkan hooyo ku dhahaya? mise wiilkii agoonkii rajaga ahaa ayaa dhakhtarka ugu weyn ee waddankaasi noqday. goor uu alle u soo celiyey dhaxalkiisii iyo xuquuqdiisii markii uu geeriyooday, adeerkiisii ku tumanayay xaqiisa oo ahaa mid aan waxba dhalin. kadibna hantidii ayuu wuxuu ka samaystay hosbitaalka ugu weyn magaaladaas, dhakhtarkaas oo ay ku sugan tahay safiya. waxaanu ku yidhi safiya, anigu waxaan ahaa wiilkii yaraa ee agoonka ahaa ee aad soo korisay, ood qalbiga wanaagsan aad ku soo dhaweysay, oo aad cibaadada alleh iyo qur'aankaba aad bartay, si naxariis lana aad laabta ii gelisay. ilaahay waa ii aqbalay ducadaadii hooyo, waanu ii xafiday alleh, waanu ii soo celiyey dhaxalkaygii oo dhammaystiran markii uu dhintay adeerkay. hooyo macaanay, wax walban anigu leeyahay adiga ayaa iska leh. wax walban sameeyana marnaba lagama yaabo inaan xaqaaga gudo. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار
النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب